بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya ciidul fitriga ee birito dhammaan adduunka muslimka laga ciidi doono iyadoo ay tahay maalin farxadeed kadib markii waajibaadkii soonka ee 30 maalmood soo socday la gutay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee bishaas soomay gaar ahaan dadka Soomaaliyeed inuu Ilaahay dambi dhaaf uga dhigo ajir iyo xasanaad ka siiyo qulubtooda iyo duruufahooda uu hagaajiyo intaa kadib dabcan dadka muslimiinta ah maanta kale waxay tahay maalin farxadeed waa maalin ku suntan maalmaha waaweyn ee muslimiinta oo ah maalinta ciidul fitriga waxaan rajaynayaa inay dadka guud ahaan ay ku damaashaadaan gaar ahaan da'yarta soo koraysa oo maalmahan oo kale xisaab gaar ah u leh waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka muslimiinta iyo waalidiinta iyo dadka muxsiniinta aba in si wanaagsan looga farxiyo ubadka yar yar gaar ahaan kuwa agoonta ah kuwa aan karin oo duruufaha gaarka qaba intaba anoo og dad badan oo muxsiniin oo arrimaha ka shaqeeya inay jiraan waxaan rajaynayaa ciidu inay noqoto ciid u siman qof kasta oo muslim maanta farxadaas la wadaago waxa sidoo kale jirta in dad badan oo dadka Soomaaliyeed ah duruufo adag ay haystaan abaara ay ku haystaan meelaha qaybtooda oo roobabkii ay si wanaagsan uga diin meelaha qaybtooda ay colaad ka jiraan meelaha qaybtooda ay duruufo adag oo nololeed ka jiraan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa duruuftaas adag ee dadka Soomaaliyeed soo wajahday muddooyinkii u dambeeyay inuu ka dulqaado fadliga ramadaanka oo ku masaabaxo wixii dunuub ay galeen mustaqbal wanaagsan oo aan rajaynayno Ilaahay idankiisa inuu ummadan u horseedo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyo dabcan dadka Soomaaliyeed lama mid aha mujtamacaadka kale ee maanta ciidaya diyaar garowga fiican u galay ubadkooda sida wanaagsan uga farxinaya duruufaha ee wanaagsan ku ciidaya waxaad moodaa qof kasta oo Soomaaliya maanta mid waxay midaan waxaysanba duruuftiisa inay adag tahay kii waxaysan amni darro iyo culaysyo kale ay haystaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynaynaa inuu duruufahaas adag dadkeena ka dalqaado dabcan Soomaaliya waxa u dheer marxalad ramadaanka waxa u dheeraa doorashooyin ayay soo gashay labadii aqal ayaa la doortay waxaan rajaynayaa iyadana doorashada madaxweynenimada ay dhiman iyadana inay si nabad ah oo degan oo maaragtay mustaqbal wanaagsan inay ku dhamaato guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay iscafiyaan inay laabtooda isku firaan inay masaalixdooda ka shaqeeyaan inay ummadaha adduunka ay tiigsadaan oo ay runtii aad uga dambeeyaan in khilaafaadka dhexdooda ay yareeyaan in ay hore uga socdaan sidii ay u gudbi lahaayeen marxaladan adag ee xasaaska aad baan ugu rajaynayaa in ay arrimahaasi oo dhan haddii niyad wanaagsan la yimaado ay qabsoomi doonaan sidoo kale maanta waxay ahayd maalintii shaqaalaha oo runtii shaqaale badan oo rayid ah ay fasax ahaayeen maalin ay tirsadaan ay ahayd maalin shaqaalaha adduunka oo iyadana runtii qofka shaqaalaha uu dareemayo maalin iyadana gaar looga yeelay oo ah inay tahay xuquuqda iyo sinaanta shaqadu ay leedahay maalmihii aadka looga shaqeeyay iyadoo adduunkana uu soo maray kala sareyn iyo is-adoonsi dhib badan waxaan rajaynayaa shaqaaluhuna iyagana meel kastoo ay joogaan inay fursadahaas isbiirsaday maalintoodii shaqaalaha maalintoodii ciidda tobankii dambe ee Ramadaan intaas oo dhan iyagana inay farxad ku ciidaan waxaan noo wada rajaynaynaa dhammaanteen mustaqbal wanaagsan deganaansho horumar xasilooni nabad iyo barwaaqo iyo raxmad runtii ummadaha geyga Soomaaliyeed oo dhan camimta duruufaha adag ee aan ku jirno naga saarta dhaqaale wanaagsan oo ummadeena noloshooda kaba Ilaahay inuu nasiiyo dadkeenuna inay gartaan waxa dantooda ah oo ay runtii ku dadaalaan amniga iyo adeega ummadda ay u qabanayaan iyo amaano hufan oo ummadooda ugu shaqeeyaan si daacad oo wanaagsan markaas ayaa waxa la gaarayaa horumarka qof walba niyadiisa ku jiro horumarka la tiigsanayo inuu noqon af ay isu bedelo ficil aad baa u mahadsantihiin kullu caam wa antum bikhayr mar labaad ciid mubaarak meel kasta oo joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh